deymaha deyntii ugu horeysay ee la qaato waxa la qaatay 61 ayaa la qaatay waxaana ay ahayd lacag credit la yiraahdo la siiyay Soomaalida markaa jirtay oo markaa ku jirsatay waxaana bixiyay Ruushka deyn Soomaaliya la siiyay Ruushka ayaa ugu horeeyay anagu halkan aan ku hayno marka labaad dadii Soomaalida waxa doonayaan ogaataan innaga report-yadeennii aan lahayn iyo ma garanaysaa waxyaalaha aan qoranay way gubteen uma yaalaan marka dadka kale waxayna yiraahdaan oo banka adduunka ka mid yahay oo hay'adda lacagta adduunka ka mid tahay ayaan ku shaqaynaynaa mar walbana waxba iska bedelaya marka waxaan idin sheegaa wax dhagax ku qoran maahe oo wax bedelmi kara laakiin maanta report-kan haynaa oo deyntii aan qarka u saaranay la inaga dhaafo waa Ruushka way tii ugu dambeysay waxa weeyaan 90kii waxaan inisiyaa World Bank aan inisiyaa bal hadda dadka inagu leh maalin horena waxaan u maleynayaa dul maray aan isla ogaan dadka inagu leh waa hay'adaha caalamka inagu leh ya dawladaha inagu leh hay'adaha dawladaha qaar isla leeyihiin ayaa inala leh Islamic Bank oo islaamkooda leeyahay Arab Monetary Fund leeyahay hay'adda lacagta Carabta oo Carabtu isla leedahay iyo kuwa ay dawladda gaar leeyihiin oo Kuwait Fund ba kamida oo ay Kuwait iska leedahay Abu Dhabi Fund ba kamida Abu Dhabi iska leedahay marka fandadka noocaas oo kala ee ay leedahayna waa kamid waxa kamid oo kale dawladdu caadi ah oo lacag inasiyo inaamahay ayaa kamida waan idin dul maraya waxa record-kan maanta hayna waxa weeyaan 5 bilyan iyo 300 milyan halkan waxaan ka kaxeeyay anigu bisha 5teedii baan laga tagay Addis Ababa tagay waxaan kaxeeyay baan dhowr iyo 30 maamulka iyo farsamo yaqaanka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo Central Bank iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ya iyo baarlamaanka gole oo iyagana ay ka socdaan xubno wakiilka ay ka socdaan intayadaas baa meesha tagnay 12 maalmood baan intayada bari joognay waxa nagu soo biiray wasiirka qorsheynta ee hadda anagu joogna iyo governorka Central Bank gudoomiyaha nagu soo biiray oo iyaguna intii badnayd mar hadda waxa meesha rag isku tagay dumarta halka isku tagay dagaalka lagu jira dagaal soo kama it's not a party dagaal soo kama waa shaqo way ayaa loo tii marka waxa kale oo inta aan la soo xiriirina dad kale oo fara badan halkan jooga oo aan shaqadooda ka wareysanayna shaqadoodii IMF soo eegayaan meel buu eegayaan wasiirka petroolka dhowr jeer baan la soo hadalay iyo staafkiisa ya shaqaalihiisa wasiirka cadaaladda iyo anti corruption iyo arrimaha dhowr jeer baan la soo hadalay ya hatta markaan soo noqonay waan halkan teleconference la IMF annaga iyo wasiiradaas oo dhan markaan ka soo noqonay halka ya wasiirka kalluumaysiga iyo dad kale oo fara badan of course ra'iisul wasaaraha oo mar walba isagu leenka inta badan nagula jiro deen hagayo na hogaaminay marka 16 maalmood 12 maalmood wixii ka soo baxay shalay baa soo baxay wakaas